wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goonee aqoonsigan doonina adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay arjamaacoy madhantiimu iskugu timideen maanta mawliid waaye nimcat alfashuuq 12 geel 12 lo'a 12 ari maxaa kaa'ide kaaliba ari aan ku dhihi karaa masku racsantii maanta inaan nimcaysano shiiqow maanta in xoola la qala maahan in la soomaa sunnaa arhoy bidca warkeedu laguma jire jamaacoy afki ii buuxiya arshiiqow maanta arshiiqow maanta loda maanta timir arloda maanta bundaango soor caano nimcat alfashuuq waa tartiibku hala dhuuqaan idin leeyahay walaadda allow dhegaysta wiilkayga wiilkiisa hilbow ka ag madoobaada anigana ilaah baan baryee iga ag muuqda war hilib jecel ama bahal baa ninku walaa sheegaasaan walaagii sheegaasaan nama sheenasaan mana sheena duduntaan kasiiduu war ma haysaane gobolka mudug aagga xarar dheere ilmihii iyo cirfiidkii dadka ku dhibay xalay cirkaa looga soo dhacay hilbaha daadsanade dawaco weer wixii bahal joogay habeenadan waa dhergayaan war hushooba la galalawsaasan ingiriya ma sagaal geel iyo sagaal loo antiniinka sheega day walil sheego hayniyow marka waxaan leenahay farxaanow colkii noo fadhiyey cidaha meeshooda oodkiya nafteennaba kuwii caaqiba u diiday amrigood nimankii miyiga nagu canshuuraayey eelcabdiyo kuwii naga qabsaday caadda xarar dheere cirkaa looga soo dhacay sidii caata weer helay carunkoodu wuxuu daadsan yahay maanta cadaleeye cadadkooda soo fiiri waad la cajabaysaa shar gudban shaydaan xijaaban horaa loo yidhi horay baa loo yidhi dilaayow dil baa kuu dambeeya marka waxaan dhihi lahaa markii diruru horaba dirurare ma weydeed hoggaashala ku daganteen daraatana ku siranteen maanta inaad ka durugtaan ma dareemi weydeen hadba daman idiin dhigan nacabkiinnu soo dumay inaad dalaq tirahdaan ma dabeecaddiinna warnimo ilaahay dilaa dhinta iska dil ma ahan qofina maanta xildhibaan daahir amiin jeesow dil baa loo qorsheeyey laakiin alla ma qadarino waa ka badbaadi wakhtigiisu suganaya qof walbaaba qof wakhtigiisa ka hormarayaana ma jiro oo nimanyow dilka maxafiisyada bilowaadmigaa laga qorsheeyaa ilaahay agtiisaan ku ogaayey war daahir amiin jeesow waxa uu yidhi qaraxa cadow ayaa soo qorsheeyey laakiin waa loo fududeeyey say rabeenna ma noqon raadiyo kulmiyan waxaan ka maqlaa gurigaaga markaa ka bixaysa labada dhinac iska fiiri baabuurkaagana intaadan fuul hoostiisa iska fiiri weliba salaamo naqsay ku dareen taxadar calaa nafsak miya war gabgabto badatay garaabada ay la aaminay wakhtuhuma laka jira inoo laka daro hayti abwaandhoodaan wuxuu yidhi heerahaad la taalliyo raggaa hawdka kula yaalla dadka oo dhan haysugu hallaynkaasi waa hebel warnimayahu in lees aamino inaan lees aaminin baa dhaanta war dadka ha kala fogayniniyow awal baa xasaabi wuxuu yidhi walaalkayni waan u haystay muxuu waddaa ii fadhiistay oo xilligaasna ma jireen war jigjiga shirkii lagu xuseeyey sayid maxamed cabdulla xasan idaajaa oo ka hadlay wuxuu yidhi sayidka marka lala hadlay waa la soo weysa qaaday yaa arro war sayidka haddii la xuso sayid axmed cabdi godane ayaan anaguna hargaysa uga xusaynaa war nimanyow cali dhuux aadan goroyo nin la odhan jiro wuxuu yidhi qamri ima cabsiin maxamed waal sida tan reer qayle haddii aan markii hore qadda'ay qoofay dabadeede anuu sayidkii nimanyo waxaan uga qancay oo ii caddeeyey inuu shabaab ahaa gabayii cali jaamaca abiil wuxuu yidhi muslimnimo ninkaan kugu dhaqayn muuminnimo qaasa gaal maxasta kuu dhowro ood magansataa dhaama macnaheedu waa iska cadya sidaan maanta u naallow sheega ninkaas war cali jaamac wuxuu yidhi niyow tuurqiyadu jara markaasuu timirta cuurtaaye ma talyaanigaasaa mahdiya tanina waa yaabe waryaa xuska aad sheegaysaanu sayidka abwaan xirsi dhuux ma ka gebye ama ha gebyo ama ha qudbeeyo ee annaga shir shabaab lagu xusayo naguma matelo warnamayaw geelle aman dheer dhammaataya gobajanii sheegasan war hatta teegan ashiin sheegaan dhegansada isan madawiine mandirine koonfur galbeed gabalgali leeye oo anagaa dirane
anagaa diranay lahaydan langili leey lafta garan geek walan binaan bahi sidii hata ka hor baa uuroo mansuur lanka binaan bahi han halan binaan baho muhuma limanti binaan bahaano tanaga gaw lahaayan anti binaanka lahan roogsiya maylaray wariya haddii isin shandagii ka dhaafu aytan madagiinga derbiya ka dhegay waleeri marka mayba araasana anagaa wadan usulantii gaanti teegayba anaa socda lahaaya ku daldala bay dhawjanaay waataya war maanta war ma haysaane guddoomiyihii hore baarlamaanka jawaari baa ka degay baydhabo aad baa loo soo dhoweeyey boorar baa lagu soo dhoweeyey ay ku qoran tahay awkay digil iyo mirifle wal maalaayna afka BL ko gobol laakiin reeda walka ka hadlayti awkii digil iyo mirifle koy yeeren war miyay ka reebeen sideedlahayagii iyo sagaalahayagii adamaaba ka jartoba war madaxweynihii hore ee xasan sheekh kismaayo kula sharciga golihii wasiirada ee jubbaland iyo madaxweyne alsayid axmed dhuxul marka waxaan la yaabanahay xasan sheekh waxa uu sheegay golaha wasiirada ee jubbaland war waddanku waa arradnaa madaxweynaha xilliga ka degaa kuma noolaa jirin arrintaasuu camiray madaxweynihii hore waddankuu ka dhex shaqaynaya war allaha u naxariistee madaxweynihii hore aadan cabdulla cismaan aadan cadde jannaaluu beer ka fashay markuu xilka ka degaye wasiirre iyo madax maamul goboleed lama shiri jirin wanaana madaxweynihii hore cabdiqaadir salaad xasan qaahiruu iska fadhiyaa siyaasaddana ma soo dhex galo soomaalidana wuu u duceeyaa markuu hadlayaba war sheekh shariif inta doorashada la gaarayo siyaasadda faraha lama galo warniyo war ma haysaane madaxweynegii hore sayraanyo imika wuu iska fadhiyaa wuu iska tasbiixsada oo masaajidka safal awalku kaga jira warnimiya usan walbasiinka galdan madaxweyne xasan sheekh markuu isbahowjiya dhowaay maylaaye qabiye ninkeedii baa dhammaystira qabiye ninkeeda war qabiye dhammaystira ka jiran miyow war madaxweynihii cadaado axmed baasto shalay asoo buwaag watuu muqdisho soo gaaray madaxtooyadaana liga wacuu yidhi anuu nimayo waxaan la yaabanahay madaxtooyada baasta laga wacay xaafna taleefanadii looga qaban diiday xaaf taleefon lagama qabanayo ilaa nabadii nool ka adeecay warnimayo waxaa la yidhi qaatumadu inay qaali tahay qaafil baan garan qar bay kala dhacdaa xaajadu qaabi leeyahay qayr iyo wanaag buu halaag u cutiqaadaa qalad ruuxu kama suuli karo quus markuu yahay war inoo madaxweynagii quursitan reer galmudug atiina malsin liyaabow war waa runoo qalad laguma saxo horta qofka quusta oo la sheegaya waayo languursidii lan isgarhiiwu war adeerow qaranka somalilan ictilaafkamuu quusan haddii ay etoobiya naga xidhatay albaabada imaaraadka noo furanoo carruurtan imika caanan loo siiya war guddiga maaliyadda ee baarlamaanka waxay wasiirka maaliyadda ku eedeeyeen wax isdabamarin iyo wax iska dabawareejis baylana wuxuu yidhi anigu beri baan ka ahay warkaas war aaway hantidhawrkii guud iyo xeerilaaliyihii miyaanay ka hadlin ha la soo xiro waa kuwii dhihi jiray war waaweynka ma xili karaan ee looma ooyaankay ku meeraystaan war ma miskiina miska la fuulo lamiya arrintu war diidan ima diidnaba diidow hartigiigan wa dheega jari haddii wawiingayn adaala warqadiyo agrii doono ley adaala warqadaha waaweynka ma aqri karo adaalayaa u baahan daahirkii la aqrinaye warwar ma haysiin adduunkana lama socotiin maanta waa maalinta carruurta adduunka shalayna waxay ahayd maalinta masquulaha adduunka war tangeega oo maalintii aruurtay aanu dhaha gordaan ilmooleena laakiin tii shaylankii masquul goda jiraya gorde waryaa warnimaya waxaalayna habeenkii duqaynta adduunkay ahayd war aawa maalintii jacaylka iyo maalintii faradhaqa oo la sheegi jiray wiilka jaagada xiirano ma ilooba arrintaas war adeer waad ka dhacsan tahay maanta waa maalintii mawliidka war adeer maanta waa maalintii dhafarka iyo qaadirada bundaango soor caano waryaa hilibkiisii waryaa hilib